بسم الله الرحمن الرحيم. وحكبرنا ويدينتن what is a subprime mortgage? Subprime mortgage waxaa sidoo kale loo yaqaanaa non-prime mortgage. haddaba inta aanan qeexin subprime mortgage aan fahanno micnaha subprime oo keli ah waana macmiil qiimaynta ama kalsoonida lagu qabo ay ka hooseyso intii la rabay oo haddii deyn la siiyo macmiilkaas awood uma lahan inuu deyntaa ku bixiyo xilligii loogu talagalay below average credit score ayuu haystaa balse haddii kalsoonida ay sarreyso waxa ay noqonaysaa prime oo waxaa laga reebayaa ereyga ah sub. haddaan u soo laabanno in aan qeexno subprime mortgage oo wada socota waa deyn guri oo la siiyey macmiil aanan buuxin karin shuruudaha deyn qaadashada oo tusaale ahaan macmiilkan waxaa soo gala dakhli hoose marka loo fiiriyo deynta uu rabay inuu qaato. haddii aan middaa yaro faahfaahino waxyaabaha ay bangiyada fiiriyaan marka ay deynta siinayaan macmiilka waxaa ka tirsan inay ogaadaan dakhliga soo gala qofka awood ma u siinaya inuu deynta uu rabo iska bixiyo oo deynta ay ka hooseyso 3 meel marka loo dhigo dakhliga soo gala meeshid ama 1/3 oo micnaheedu yahay haddii macmiilka uu qaato mushaar dhan $1 deynta guriga ee bil waliba uu macmiilku dib u bixin doono ama monthly installment waa in aysan ka badanin 333 middaa oo ku timid haddii 1,000 aan u qaybinno 3 waxaa inoo soo baxaysa 333 iyo jajab. haddii marka macmiilka la siiyo deyn ka badan intaa macmiilka awood uma yeelan doono inuu deyntaa ku bixiyo xilligii loogu talagalay. marka subprime mortgage waxa ay noqonaysaa macmiil awoodiisu ahayd inuu bil waliba bixiyo 333 in la siiyo deyn bil waliba laga rabo in uu bixiyo 600 oo macmiilkii waxaa loo ogolaaday in uu qaado deyn ka badan awoodiisa middaas oo dhibaatadeedu ay ku soo laabanayso bangiga. qaacidada marka la joogo credit worthiness of the borrower ama kalsoonida uu bangiga ku qabo macmiilka haddii ay sarreyso waxaa laga qaadaa macmiilka dulsaar hoose balse haddii kalsoonida dib u bixinta deynta ay hooseyso waxaa macmiilka laga qaadaa dulsaar badan. haddaba subprime mortgage macaamiisha waxaa laga qaadaa dulsaar badan maadaama rajada dib u bixinta deynta ay hooseyso. dhanka kale subprime mortgage waxa ay kaalin weyn ka qaadatay dhibaatadii dhaqaale ee ka dhacday dunida sanadii 2008 waayo dad badan ayaa la siiyey deyn guri oo aanay awoodin inay dib u bixiyaan xilligii laga filayey. firigooni ah mar waliba oo aan ka hadalno dulsaar ogow in dulsaarku ama interest rate uu yahay xaaraan oo shareecada islaamka bataatan ay xarimtay. acuudu billaahi samiici alcaliim min ashaytaani arajiim وأحل الله البيع وحرم الربا. waxaanan qiyaasayaa in qof waliba oo jaamacad dhigta ay qaataan maadooyinka fiqh almucaamalaat ee usuul alfiqh an qawaacid alfiqhiya xog dheeraada oo ku saabsan sugnaanta deynta bangiyada deynta guryaha iyo credit score fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanediin waa inuu mar kale haddii rabbi idmo.